Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal. Maanta qisadaan inoo wada waxay ku dhacday wiil la yiraahdo Samiir waxa uu yiri berigii hore ee aan yaraa waxaan ku noolaa nolol aad u farxad badan maadaama reerkaygu ay dhaleen keligay wax walba aan doonana way siin jireen hooyada iyo aabahay. Maalina wixii aan doonayay igama aysan qadin ama asaagayga ma reebin. Wuxuu yiri Samiir markii aan waxbarashadii dugsiga sare dhameeyay go'aan waxaan ku gaaray inaan wadanka ka tago hooyada iyo aabahay inkastayna ka raali ahayn inaan ka fogaado misana way garab istaageen. Waxaan aaday wadanka Faransiiska halka ayaan ka soo dhameeyay waxbarashadaydii. Markii aan soo noqday waxaan u imi aabahay oo wax walba ii diyaariyay gaari cusub oo aan anigu wato. Waxa uu yiri markii aan ayaama joogay shaqo waxaan ka helay jaamacadda wadanka aan joogay. Halkii ayaan ku guursaday waxaana ii dhalatay hal gabadha. Xoogaa markii la joogay wuxuu yiri waxa geeriyootay hooyaday waxaana ii soo wareegay aabahay maadaama aanan wax walaalo lahayn. Waxa uu yiri aabahay waxa uu dhaxayn jiray salaadiisa uu tukado cabaar uu dhulka soo marmaro ama dibadda fadhiisto iyo casarkii badanaana wuxuu sugi jiray gabadhayda yar markay ka timaado iskuulka ayuu halka kula ciyaari jiray kulana sheekaysan jiray. Wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah ayaa inantayda aabahay iyadoo la ciyaaraysa waxay tiri awoowe maxaad nooga tagaysaa. Aabahay waxa uu ku yiri boqoradayda yarayday maaniga ayaa kaa tagi karaa weligii kaa tagi maaya awoowe. Waxay tiri awoowe hooyo waxay lahayd awoowe waa tagayaa maxaad nooga tagaysaa hooyana been ima sheegto. Wuxuu yiri mindha hooyo waa kugu ciyaaraysay maadaama aad jeceshahay waxyaalo wax islahayd ama aad maqashid hooyada iyo hooyada maqal. Waxa uu yiri aroortii dambe ayaan gabadhii shaqaalada ahayd waxaan ka dalbaday inay dharka aabahay ururiso oo shindad ku rido. Markii ay ururisay gabadhii waxaan ku yiri aabe soo bax. Wuxuuna igu yiri wiilkaygiiyow maanta ma hayo waqti aan iska joogay iga daa. Mayban ku yiri soo bax waan habsaamaya arday bay sugaysay. Wuxuu yiri aabahay ayaan soo kaxeeyay muddo saacad iyo badh markii aan wadada ku soo jiray oo aabahay weydiinayo meesha aan wado ayaa waxaan ku yiri aabe waxaan kuu soo diyaariyay ama meel kaaga soo qabtay dhulkan lagu xanaaneeyo dadka waaweyn. Anigu ma ihi aabe caasi waan ogahay abaalkaad ii gashay misana xaaskaygu raaxo kuma dareemayso joogitaankaaga aniguna sidaas leeg mana doonayo reerkaygu inuu burburo. Halkan ayaan bil walba kaaga bixinayaa lacagta waxaan doonayaa aabe inaan ku soo booqdo halkaana joog. Wuxuu yiri ilaa intaanu gaaraynay meeshii aabahay waxa uu ahaa mid aamusan oo hadalba iima soo celin. Markii aanu meeshii tagnay waxaan bilaabay inaan la dardaarmo dadkii meesha hayay aniga kula ilaaliya anaa lacagtiisa iyo wax walba idin soo diraya. Markii ay noqotay inaan soo boqolo ayaa aabahay gacantaygu dhigay. Wuxuu yiri inankaygiiyo maxaad sidaa igu samaynaysaa. Waxaan ku yiri aabe ma doonayo gurigaygu inuu burburo. Wuxuu yiri aabahay wuxuu igu yiri hadal waad ii dhamaysay adiguna jawaabtaada waad heli doontaa. Ma fahmin buu yiri wuxuu ka wada jawaabtaada waad heli doontaa. Waan iskaga soo baxay gurigii baan ku soo noqday waxaanan arkay inuu gurigii yahay guri degan xaaskayga isqabsashadii waa yaraatay raaxaba ayaan dareenay. Wuxuu yiri waxa ka soo wareegtay bil ma soo booqan. Wiilkan wuxuu leeyahay moodin inaan ahay caasi maadaama aan soo booqan waayay laakiin waqti baan waayay. Waa isagu sida uu yiri. Waxa uu yiri bil iyo badh markii laga joogay maqnaanshihii aabahay ayaa maalin maalmaha kamid ah waxay la iga soo wacay meeshii aabahay lagu hayay. Bishaana waan u diray wixiisa uu baahan yahay iyo lacagtiisa. Waxa ay u dhaxeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aabaha waa dhintay. Waa inaynu soo diyaarinaa meeshii lagu aasi lahaa. Waxaanuna galay howlgal waanuna aasnay. Aaska ka bacdi waxa la igu yiri aabaha wuxuu kaaga tagay waraaq
waraaqdii ayaan soo qaaday waana furay. waraaqda waxaa ku qornayd inankaygiyow ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwun lakum faxdaruuhum. kuwii iimaanka laga helayow qaar ka mid a xaasaskiina iyo caruurihiinu waa cadow idinka bay cadow idin yihiine iska ilaaliya. waxa uuna yidhi aabba waan ku cafiyey, laakiin ma og tahay in markii aad Faransiiska tagtay ayaan laygu xidhay lacagtii aan Faransiiska ku geeyey oo muddo 2 sano aan xidhinaa. markii aan 2 sano dhammaystayna aan iibiyey gurigeennii aniga oo isle haddii aad dhimatid hala dhiman dayn. lacagtii ka soo hadhayna badhna waxa qaadatay ijaar oo waxaan ku bixin jiray kirada guriga, badhna gaadhigii aad markaa timi hadiyada kaaga dhigay baan kuu siiyey. waxaan doonayay inaan inantaada laabta geliyo oo ku idhaahdo xaaskaygu siday u dhimatay adiga mooye cid kale ima farxad gelin, laakiin nasiibku ima saacidin. waxa uu yidhi markii aan waraaqda akhristay meel baa i go'day. waxaynu odhan karnaa wiilkani waa waalidiinkaar. maxayba meel ku go'aysa haddiiba aabbaha aad geysay daartan dadka waayeelka lagu xanaaneeyo, weliba isagoo aan ka raalli ahayn. wuxuu raalli gelinayay xaaskiisa isaga oo aabbihii dhalayna tuuray. xasbi allah wa nicmal wakiil. waan rajeynaya inaad ka heshay qisada. channelka subscribe saar, gambaleelka furo, fideoyadana like saar. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. nooli kulanteen.